السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نقيات يوتيوب وين سلامي عشان wuxuu ku saabsan yahay sideen u soo ceshan lahayn feelal naga maqnay sawir ha ahaado ama lambaraan iska tirna ahaado ama message ama video naga maqan marka aan ku tuso dadka isticmaala mobilka Android ayuu aad u anfacaya barnaamijkan isticmaalana barnaamij sahlan ma ahan oo lacag la'aan ma waa mid lacag ah sida uu la soo degto waxaan isticmaalaynaa app-ka ayaan kala soo degaynaa inta badan barnaamijyada oo lacag la'aanta laga helo kadib wax ku qoraysaa Tiktok phone ayaa ku qoraysaa sidaas ayuu kugu soo baxayaa kadibna waxaa leedahay install ayaa leedahay sida uu ugu shubo kadib markuu ugu shubo installka waxaa sameynaysaa in mobilkaaga installka ku sameeyo ku soo dejiyo kadib markuu downloadka ku dhameeyo waxaa sameynaysaa in installation adiga aad sameysid kadib installation marka ku dhufto waxa ii soo baxayo qaybta installka application-ka install ayaan leeyahay kadib waxa ayaan sugayaa dan ayaa ii soo baxayso kadibna marka dan ku soo baxdo okay ayaa leedahay kadibna waa ka soo laabanaysaa si aan application kadib aan u soo furno qaybta application-ka ayaa tagaysaa kadibna waxaad tagaysaa meesha ku qoran tahay Tiktok phone-ka aad soo download gareysatay ayaa dib u furaysaa kadib markaa furtid waxaa ku soo baxayo barnaamijka in oo furtid oo ku soo baxo calaamadiisa Tiktok phone Google Play Store kama helaysid waxa ku qoran meesha sawirada videoyada iyo qaybta message-ka ama contact-ga nambarada telefoonka mar hore ka tagtay telefoonka ka tagtay mar hore ku soo xisha kartaa meeshan waxaan ka dooranaa video ay picture-kan galnay kadibna sawirada PNG sawirada nooca ka maqan PNG nooca adiga sawirkaaga yahay iyo videoga nooca MP4 ayaa ga maqan labadaas kaliya ayaan fiirinaa inta kale haddii ay wax ka maqan yihiin videoyada aad isticmaalaysid nooca uu yahay ayaad ka dooranaysaa kadibna waxaa leedahay search ayaad ku dhufanaysaa calaamada waxa ku soo baxaysa in allow ogaatid waxaa looga soconaysaa in aad u ogolaatid sida uu u sameeyo barnaamijka allow ayaa leedahay maadaama mobilka root leeyahay kadibna sidan wuxuu ku soo saaray internal internal waxa waaye mobilkaaga caadiga storage-kiisa waaye external waxa la dhahaa memory-ga kugu xiran ama flash memory sida dadka qaar u yaqaaniin ee kugu xiran mobilkaaga kadibna waxa leedahay scan ayaa leedahay wuxuu kala dooran oo kaliya ujeedaa sawir iyo video labadaba wuu ku soo qabanayaa iyo waxa dooratay oo kale feelaha haddii kala maqan yihiin laakiin 100% sawiro badan ayuu aad u soo celiyay oo muddo iga maqnaay mid kale waxaan tusi doonaa insha Allah bidana qaybta computer-kana waa idin tusi doonaa ka marka dhameysatid waxa leedahay jag ayaa saaraysaa kadib waxa leedahay recovery ayaa leedahay meesha aad rabtid inuu kugu save gareeyo aan waxa rabaa external-ka ayaan rabaa haddii rabtid internal-ka oo memory-ga waad ku shubi kartaa kadib waa dhameeyo ku dhahay video itusaan dhahay saddex sawir ka qaad waa kaas adiga waa sii wada kartaa wixii aad ugu baahan tahay waqtigan soo gaabana kaliya duruus ay ugu baahanahay inaad ka faa'iideysato ayaa muhiimad ah marka barnaamijka sidan ayuu diyaar kuugu yahay insha Allah bidna ka faa'iideyso wixii aqoontadan wala ka u faa'iideey assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khairan